maalmahan waxaa ka socday howlo lagu burburinayo argagixisada caalamiga ah taasoo maxay fariisimo fara badan oo leeyihiin ay lahaayeen maalmahan la burburiyay dalka wuxuu u jihaystay dagaal waxaan rabnaa qawaariista jaanis bay haystaan maanta ay kaga faa'iideysan karaan dhalinyaro yaroo la qalday inay maxay deegaankoodii iyo dalkoodii dib ugu soo laabtaan waxaan leeyahay shacabka Jubbaland ha loo diyaar garoobo nimankan waqtigooda u dhamaaday waqti yar baa u haray waqtigaa yar maxay ahayd in loo diyaar garoobo sidaan isku dhaafin lahayn ay ugu dhaafi lahaayeen howlgallada ka jiro deegaanka maalmahan run ahaantii ciidamada Jubbaland guulo la taaban karo iyay maxay maalmahan soo hoyiyeen habeenii maalin waxaa loo taagan yahay maxay ahayd in cadawgaas dalka laga saaro shacabkana ciidamada ay daba taagnaadaan sida hadda gabdhaha ay u wadaan qalabka oo kale loo daba taagnaado la dhiirigeliyo yaa looga baahan yahay waana ka guulaysan doonaa insha Allah tacaala waqtigooda dhamaaday waxaana u sheegaynaa hooyooyinka iyo waalidiinta dhalay ilmaha yar koo la qalday inay la hadlaan jaanis haystaan maanta kaga faa'iideystaan intaanan howlgallada hadda ayna wajigii labaad way bilaabayaan kullu intay bilaamin inay kaga faa'iideystaan oo ilmahooda soo gacan soo qabsadaan soo xareystaan wixii deegaankan ka raacay taasna maxay ahayd waa baraarujin waalidiin aan baraarujinayno أنا لو ديار قالوا إن شاء الله تعالى أقول الله مدحونا ياش يكون واقعين مدحونا حسن شيخ محمود مدحونا أحمد محمد الإسلام يكون واقعين وأنا ديار قالونا شعبي عيدا عن الله كلا حرين وقعمها إسقف سنة وأنا ما كان أسلافنه